waa kuma qofka orday 300 kiiloomitir isagoo sooman. gifted and safi. رمضان مبارك دمان مسلمين تمد الله مشي دنيا إضافة عالم كجوجان وحن هلك إن كذا سولية هاي رمضان كريم كل سودة هذا برنامج كنا بيشا بركيسن رمضان. Happy Ramadan to all Muslims. All the Quran in this holy month. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا صاحب يال مجاعي وعمر محمد علي وهلكا إذا كجسوا لي هاي رمضان كريم كل عام وأنتم بخير. من على مشهد كسوجنتهين أنت مسلم هلكا يعني كلا هاي رمضان مبارك. هذا ببرنامجنا أتكلم آيات كذا وضنتان مركز ساعد تهاي أفرته قلب نمو يعني أقرأ أكون هاي 10 ساعة 10 saac ee galabnimo ay daawan doontaan barnaamijkeena halka luqadda Ingiriiskana aad ka daawan doontaan labada duhurnimo oo aynu u naqaano 8 saac ee duhurnimo ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa nin orday 300 kiiloomitir isaga oo sooman shacabul muslimiin Avrus Mia waa 47 jir ku nool wadanka UK warbaahinta dalkaas ayaa tabisay inuu orod ku gooyay bedhuleed ka kooban 300 kiiloomitir isaga oo sooman 22 maalmood ay ku qaadatay inuu gaaro baltilmaameedkiisa maalin kasta waxaa la sheegay inuu 15 kiiloomitir ordi jiray isagoo afxiran sanadkii hore Avrus wuxuu wajahay xaalad caafimaad xumo kadib markii ay dhaqaatiirta u sheegeen inuu wadna istaag halis ugu jiro 6 bilood gudahood markaas waxaa loo sheegay inuu isbedel ballaaran ku sameeyo hab nololeedkiisa Master Avrus ayaa go'aansaday inuu isbedelkaasi ku dhaqaaqo isagoo lacag ururin u sameynaya hay'adaha samafalka ninkan ayaa waxa uu ahaa macallin caan ka ahaa deegaankiisa wuxuu hadda isu rogay orodyahan caan ah wuxuu orod ugu kala gudbay magaalooyinka Leicester iyo London wuxuu xusay inuu qaato cunno inta uu sooman yahay shidaal uu noqon karta oo isku dheelitiran barnaamijkeena gaaban ayaan halkan ku soo afmeeraynaa hadaba ogsoonow maanta kadib inaad ku daawan doonto barnaamij cusub saacadu markay tahay 10 galabnimo hadaba luqadda Ingiriiskuna halka kama marna ayadana waxaad daawan doontaan maalin kale 8 galabnimo